madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa aqbalay codsi cafis ah oo soo dalbaday ra'iisul wasaare ku-xigeenkii hore ee Soomaaliya Maxamed Cumar Carte Qaalib kaas oo dhawaan shaaciyay in uu safar ku yahay oo u socdo magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland halkaas oo ku xanuunsanaya aabihii Maxamed Cumar Carte Qaalib ayaa xilal kala duwan waxa uu ka soo qabtay dowladda federaalka ahayd ee Soomaaliya iyadoo ugu dambeynna haatan uu ahaa xildhibaan ka tirsan golaha shacabka محمد عمر الدارق ayaa inoo faafahinaya madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa cafis u fidiyay ra'iisul wasaare ku-xigeenkii hore ee Soomaaliya Maxamed Cumar Carte Qaalib kaasi oo waqtigan ah xildhibaan ka tirsan aqalka hoose ee baarlamaanka Soomaaliya cafiska madaxweynaha Soomaaliland u fidiyay ra'iisul wasaare ku-xigeenkii hore ee Soomaaliya Maxamed Cumar Carte Qaalib ayaa ka dambeysay kadib markii uu Maxamed Cumar Carte Qaalib uu soo dalbaday cafis isla markaasina uu ka noqday mabdii hore ee midnimada Soomaaliya ee uu aaminsanaa isla markaasina uu iska casilay xilkii xildhibaannimo ee baarlamaanka aqalka hoose ee Soomaaliya waxaana imaatinka ra'iisul wasaare ku-xigeenkii hore ee Soomaaliya Maxamed Cumar Carte Qaalib oo madaxweynaha Soomaaliland maanta u fidiyay cafiska oo ku soo beegmaya imaatinkiisu kadib markii aabihii Cumar Carte Qaalib uu maalmihii u dambeeyay xanuun u jiifay mid ka mid ah cusbitaalada ku yaala magaalada Hargeysa waxaana isla maantaba magaalada Hargeysa soo gaadhay Maxamed Cumar Carte Qaalib kadib markii ay soo baxday waraaqda cafiska madaxweynaha Soomaaliland wareegtada madaxweynaha ee cafiska ayaa waxa ay u dhignayd sida tan markaan arkay dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland qodobka 9aad xubintiisa 5aad markaan arkay xeerka ciqaabta guud qodobkiisa 144aad markaan arkay qoraalka tala bixinta xeeraryaha guud ee qaranka ee sumadiisu tahay kuna taariikhaysan 24 bisha 10aad 2020 markaan arkay qoraalka wasaaradda arrimaha gudaha ee Soomaaliland ee ku taariikhaysan 24 bisha 10aad 2020 markaan tixgeliyay codsiga saamaxaadda ee ku taariikhaysnaa 21 bishii 10aad 2020 iyo arjiga odayaasha dhaqanka ee ku taariikhaysnaa 21 bishii 10aad 2020 markaan la tashaday hay'adaha ay khusayso waxaan go'aamiyay in aan saamaxaad u fidiyo Maxamed Cumar Carte maadaama uu ka noqday fikirkiisii hore waxaana waraqdaasi ku saxeexnaa madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi Maxamed Cumar Daariq RTN Hargeysa